Saynis yahanadu waxay hadda sameeyeen foomka nolosha wanaagsan ee abid. Saynis yahanadu waxay abuureen bakteeriyo leh koodka hidde-sidaha si aad u habaysan, ugana fara geliya marka loo eego nolosha kale ee dunida. Bakteeriyadan Escherichia coli synthetic oo loo yaqaan sin 57 ayaa loo farsameeyay inay dhisto jidhkeeda iyada oo la adeegsanayo 57 ka mid ah 4 odons oo u adeegay dhammaan noolaha la yaqaan muddo balaayiin sano ah. Habka nolosha waxaa lagu qoray luqad adeegsata 4 od oo kala duwan oo mid kasta ka kooban yahay saddex-geesoodka nucleotides. Waa weedhaha dhaadheer ee 3 xaraf odons kuwaas oo ka kooban DHII AN EE-ga iyo AN EE-ga. Waxay siiyeen unugyadeena tilmaamaha lagama maarmaanka ah si ay ugu turjumaan walxaha caadiga ah ee dhismaha nolosha, asiidiyada amino, kuwaas oo si isku xigta loo dejiyo si ay u sameeyaan borotiinno. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Jaantus muujinaya xariiqa mesengerana oo ay ku sadkan yihiin buundooyin matalaya nucleotide oo loo qaybiyey xajin oo loo qaybiyey 3 qaybood. Saddexdan saddex-geesoodka ah ee nucleotide waxaa lagu calaamadeeyey odons. Marna iyo odons waxay sii maraan ribosome oo u taagan sidii goob buluug ah, halkaas oo odons loo tarjumay anti-odons, kadibna amino acids, kadibna borotiinno. Codonku waa taxane DNA ama RNA oo ka kooban 3 nucleotide. Madxadka cilmi baarista genome ee qaranka. Marka unugu uu dhisayo borotiinada, waxa uu akhriyaa isku xigihiga koodka oo la qoray iyada oo la isticmaalayo 4 kaas nucleotide saddex-geesoodka ah si ay u ogaadaan amino acidska ay ku dari karaan higa iyo goorta la joojinayo. Laakiin nidaamkani waxa uu leeyahay qaar nuqul ah oo aan la macnayn karin. Dhammaan noolaha dabiiriga ah waxay ku dhisi karaan borotiinada ay u baahan yihiin oo keliya 2 amino acids, taas oo macnaheedu yahay odons badan ayaa isku mid ah 2 jibaaran. Sin 57 waxay meesha ka saartaa qaar ka mid ah odonsyadan u muuqda kuwo aan loo baahnayn. Kooxo kale ayaa ka shaqaynayay yoolkan, laakiin koox ka socota golaha cilmi baadhista caafimaadka shaybaarka molecular biology ee boqortooyada midowday ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee hela qaab nololeed ilaa calaamada 57 odon rikoodhkaas oo beddelaya guulihii hore ee 1 odon genome. Cilmi baadhayaashu waxay damceen inay tirtiraan 4 ka mid ah 6 odons ee la xidhiidha sirine amino acid, 2 ka mid ah 4 od ee alanine iyo 1 stop odon. Meesha odonska aan caadiga ahayn ay ka soo muuqdeen genomika bakteeriyada, cilmi baarayaashu waxay ku beddeleen odons isku mid ah oo bixiya tilmaamo isku mid ah. Tani waxay u baahday in ka badan 1 isbeddel oo lagu sameeyo odekayda. Kuwaas waxaa la qorsheeyey in kombyuutarka markii hore in 1 kilobit jajabiyo, kadibna waxaa yimid shaqada adag ee ururinta hidda-socodka. Si loo hubiyo in aanay gelinayn isbeddelo aasaasi ah oo waxyeello u leh microbes, kooxdu waxay tijaabisay qaybo yaryar oo ah genomika synthetic ee bakteeriyada nool hoogaa. Aakhirkiina way isku wada toleen si ay u sameeyaan finalka gebi ahaanba cadaadis synthetic. Xaqiiqdii waxaan soo marnay xilliyadan oo kale. Hageeg, tani miyay noqon doontaa dhammaad dhintay mise ma arki karnaa tan? Biologist Wesley Robertson oo ka mid ah qorayaasha hormoodka ah ee daraasadda ayaa u sheegay wariye New York Times Arl Simmer. Waa hawl qabad baaxad leh oo muujinaya in noloshu ay ku noolaan karto iyada oo la raacayo qaab dhismeedka hidde-sidaha oo si weyn u dhufan. Waxa kale oo ay suurtagal tahay in ay horayso odadka soo hadhay si loogu meeleeyo doorar kala duwan. Sin 57 waxay leedahay meel bannaan oo dheeri ah oo lagu soo bandhigo asiidiyada aminoka ee aan kan ahayn, taasoo soo bandhigaysa fursado waaweyn oo lagu ballaariyo odayka hidde-sidaha xitaa intaas ka sii badan. Kooxdu waxay ku tiri war-saxaafadeed. Tani waxay u oggolaan doontaa cilmi baarayaasha inay horumariyaan polymers synthetic iyo macrocycles cusub. Iyo sababta oo ah sin 57 non-canonical oday genetic oday waa in ay ahaato mid aan la akhriyin microbes dabiiriga ah sida fayrasyada, kuwaas oo ku shaqeeya qaadashada borotiinka unugyada. Bakteeriyadani waa in ay iska caabiso caabuqa. Taasi waxay ka caawin kartaa dhimista qarashyada la xidhiidha beerashada warshadaha ee borotiinada bakteeriyada, halkaas oo faafitaanka fayrasku uu yahay dib u dhac weyn. Genomgan aan la akhriyin waxa kale oo laga yaabaa inuu si wax ku ool ah u nadiifiyo bakteeriyada hidde ahaan la beddelay, rajo soo jiidasho leh si wax looga qabto welwelka ku saabsan hidda-wadaha la beddelay ee ku daadanaya deegaanka dabiiriga ah. Waxaan markaa ka hortagi karnaa baxsashada macluumaadka noolahayaga synthetic, Robertson ayaa u sheegay Simmer. Shaqadani waxay tusaale u tahay sida isku dhafka genomiku uu u dhaqaajin karo taxanaha genomika noolaha ee gobollo cusub oo isku xiga oo laga yaabo in aanay nolosha dabiiriga ahi gaadhin, ayay kooxdu ku soo gabagabaysay. Cilmi baadhistan ayaa lagu daabacay Sayniska.